قصة أذك با وحي كدع ذي بنتلان مقالة مش هيقاي لكن ويلي يقبض بايس حتحتي أو السكان صدي أو ودادها أو وعنا أو ونكسنا أو إله سبحانه وتعالى يسوسو تشيذي وإسكهلين قعنت إسقليه وهي إسقور سدين ويلكو وريرها الله هيب صوعو قبضوا سي واكو يجري هذا عنا قاتلنا نحن شعب الله المختار قل ذا تريوي أنك واحد دير قبانا هاي إذن قنباتهن قل ذا ترى هذا وي ويلكو سي وريرها الله هيب صوعو لكن قبضنا يويل كان وحين نقدين كوا إلهي أدومدي سكمدا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بي وحقوق يبصدينه وحي لهذين روح كسر ريا مجرو روح وحدير مجرو روح كفضل بدن مجرو إلهي روحا ودواذا با ولالكي روح إلهي يقان با وحكو درسانيا روح النبي محمد رميي بان تلابا لقاضيا وإذ قرسدين وحي الدبابا قبدي وأورستي الميد شيء وعلى دم جوجبا ويلكي والله إرسدي والله قراعي صحن باللوحة نوجيي وقبل قبي المهي دشينا أبتيجي بأدلي أبتيجي قبل الله دشي بأنول كدلي نول أسقون نول أيو دلي قبل هذا سكدا علي ويلكي يقبضني هذا ودقنيهين مقدسي جوجان المن إلهي واسيي قري قودنا ودسنياه نينكي دول ميجا جيستينا أسقي ربيجي عدة دقن كاب اللوضي أما حوق سينا سنة أيجي ربي قودوي دقن كو ودقن كميرها له أو ويلكا دشا أما قبض دلتا أبتجد وديليو أذركي وديليو قبضوا هداي تعرير الله يبصعه أذرك ديلايا أما أوجا بديلايا أويل كدلاي أما لبضوا ولا سكوا ديلايا ظلم إلهي لغقلوا وحقوين مركب بعد المحيا حيداي كفر وشرك قتل النفس وواتقنانه من كبائر الذنوب ومن الموبقات وحا قارسين يا قرطة دنبقى انت لك ظلمك انت لك بأنك دين إنو دين متقنن دقن إنو إلهي مركو إليه إن الدين عند الله الإسلام معناه ذو ياي دقنك إلهي رالك كيهي وإسلام دقنك لإلهي رالك ما فكما تدين تدان واحد كدقن يالتو أيا لغا دقن ياليا قصة اللبات قبل كجدو قبر بعد ذهب لقى حذي وحكى حذي بيتري هذا كما أوصل حذين ما له في رثي هل كوحتاجن إن أذيرك ما يكن معه هل كوحتاجن إن أبتجد ما فريد كيوي هاي كان هبر يربان واهاي ماشي واحد شوقي reeraha la hayb soo nin kamida kana iga xaday tiri kan ba iga xaday waa la qabtay kursiga ay hor yaalo kale oo sida u giigsan ayaa lagu xiray afar diblood baa loo xiray wixii la garaacaba markuu sheegi waaye batrool baa la soo qaaday waa lagu bilbilay waa la gubay ilaa uu ka dhimanay waa qisad dhab ah oo aniga maxay ahayday aan idin hayo meeshay ka dhacday aniga ma sheegay iyo cidii samaysay laakiin gobol insha Allah tabaaraka wa taala dahabkii ma la waayay ma lama waayin gabadhii tiri dahabka ninkana iga xaday boorsooyinkeeda mid kamid ah laga helay boorsooyinkeeda mid kamid ah
ayaa laga helay ninkani waxaasoo dhan u mutaystay looma ooyaan baa la dhahaa dadka noocaas oo kale ah looma ooyaan laakiin habaryaraa dhashay eedaa dhashay reer hebel waaye waa lagu dhici waaye miskiin baa miska la fuula leh waxa magaalada Afgooye ka dhacay wiil iyo aabihii iyo awowgii oo waliba kulligood macallin qur'aan ah saddexdaba wiilka aabihii iyo awowgii waa macallimiin qur'aan waa la soo wada qabtay waxa dirirayay reerihii meelaha joogay baa dagaalamayay waa la dilayaa tiirka la keenay waxay yiraahdeen inta aydan dilin laba ragcadood aan tukanno bas nadila markaa waa diideen dadkii daalimiinta ahaa waxay yiraahdeen maya maxaa dhacay waa idinka awood badannahay lama ooyaanatiin laangaabatiin cid wax naga bal eega dulmiga intuu wiil aabihii iyo awowgii hal meel la dhigayo oo ahlul macallimiin qur'aana waa diideen maxaa dhacay waana habaaraysaan 30 kiiba waa lagu furay khasnadiya lagu wada dhameeyay waxa loo dilay waa reer kaaway waa taqaanaan qisadii caanka ahayd ee xamar ka dhacday wiil baa gabar isxudxoteen bay sukaansadeen waa isku qanceen wiilku wuxuu ahaa reeraha looma ooyaanka la dhaho ama la hayb sooco ama maxay ahayd laangaab weeye iyo qurun baa tihiin la yiraahdo isma geeyno gabadhiisa waxay tiri inna akramakum inda allahi atqaakum waa isgeeyna muslim waaye kufkayga waaye wiilkii iyo gabadhii oo isla maqan ama dhuuntay wiilka adeerkii baa la qabtay shaqo adaga laga qabtay sidii loo tumaayay isagiina waa la bilbilay shidaal lagu subay ilaa uu ka dhintay islaantii uu qabay baa aniga ii timi islaantii uu qabay ninka la dilay baa aniga ii timi oo arkay xamaray ka dhacday waxa loogu sameeyay waa ma jirtid abuurkaagu waa khaldan yahay hadda maagitaankaasi xaguu ku dhacaya allihii khaaliqa ahaa hargeysa aan ka hormaro horta bariyo dhaweedaan soo jeclaaday aan laascaano ku hormaro laascaano wiil iyo gabar baa sidii oo kale isu xodxotay waa isguursadeen wiilkii waxbaa loo dhalay reerkii hadda waxaa loo yaqaanaa barbar nijaas nus dhan waa nijaaso waa magaalada laascaanay ka dhacday garta reerka aniga ka dhashay dhaqankaas ay leeyihiin reerka anigu ka dhashay dhaqankaas ay leeyihiinoo anigu dee dadkan aan ka soo dhaxbaxay hargeysa masaajid ku yaala oo masaajidda hargeysa ka mid ah baa oday wacan oo wanaagsan gabar 15 jir oo quruxsan dhalay baa masaajid kaga istaagay gabadha yaa iga gursanaya waa loo jaakiray nin reeraha la hayb sooco ayaa istaagay aniga diyaar wariya masaajidka ciyaarta ka daaween masaajidka ciyaarta ka daa ya ولا ليال معاشر المسلمين معاشر المؤمنين يا أمة محمد ددك دقن كودو دقن كايهي عذاب وعقاب كودو يهي ددك إلهي ماغي ددك النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة ذي سي دري ددك خلقك إلهي قيبنا يري ونجاس قيبنا يري وطهارة طاهرين ويه
dadka xukunkaa qaatay ilaahay waxaan ka baqayaa inay galaan am lahum shurakaa'u sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah guurkii bay xaaraantimeeyeen muslimiinta dhexdooda wada jooggii iyo wada dhalashadii bay kala dileen diin aanan diinteenna ahayn bay diin inooga yeeleen dhaqan aanan dhaqankuu ilaahay doonayo bay uusan doonayn bay dhaqan inooga yeeleen arxaamtii bay kala dileen arxaamtii bay kala fogeeyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqi dhan uu abuuray laga bilaabo raas casayr ilaa iyo raaska yambooni daadsan habeen dhoweyd baan dhegaysanayay Hargeysa nin boqor ah oo reeraha lahayb sooco ka mid ah oo ku doodaya salaada ma idinku daba tukan karnaa haddaanu nahay reeraha lahayb sooco reeraha darajada lahow salaada aan idinku daba tukannaa ma ansaxaysaa wallaahi alcadiim saddex habeen ma laga jooga markaan dhegaysanayay salaadii ma naga ansaxaysaa oo idinka ma idinka ansaxaysaa oo annaga ma naga ansaxaysaa maxaa yeelay xadiis baa sugan uu nebigu yidhi sallallahu alayhi wasallam nin dad tujinaya dadkuna ay karaahaysanayaan ninkani ilaahay waxba kama aqbalayo waa idin karaahaysanaynaa waana dhibteen waana baabi'iseen waana maxay ahaydayay disheen adduunkaad nagu aasteen aakhire intaana la gaarin وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وقبر كلية مثل آسي بو إلهي فوق العرش كزور دواقي وهو إلهي كآموسي وايي لبن مليون كدوات أو صوماليا أو مسلمين أو أمة محمد ومن الراكعين الساجدين وقد يكونوا الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله بعد يستن علماء إيا مدحذا إيا إسماذا صوماليات إلهي هدان كبقو وحن كبقى يا دنبقى إنا وحكوية لنو دنبقى انتا اللائك وقرديسو انتا اللائك تهي وأبارها سببوها oo deganaan la'aanta sabab u ah oo amni la'aanta sababka u ah wuxuu yiri doqoni qufacday meel laga hayana ma taqaan doqoni qufacday meel laga hayana ma taqaan ha roobka daahay halkaas lagu diriray keer iyo kaas war waxa samaynaysaan meel laga sameeyo ma jirto Mareykanka bay Soomaali u qaxday wiilashii iyo caanka gabdhii waxay raaceen cadaankii gabdhii waxay raaceen Jamaykaankii gabdhii gaaladay raaceen reerihii gabdhahoodii waa wataan ma takoorin ma caayin ma samaynin waxa dhacday maalin dhaweyd gobolada doorashada ka socotay gobol kamida waxa tagtay gabadh Talyaaniga ka timi waxay u saaran tahay nin Talyaaniga waxay rabtaa xildhibaan wallahi alazim waxa campaign-keeda waday dad rukuuca oo sujuuda oo wadaada oo diinta ooya gabadha campaign-keeda dhinac ka galayeen la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah hadda naagtu talyaani bay u saaran tahay ha wala wata dhabarka lagu xirtay xabadka la saaray waxa maxay ahaydayay waaba la horkacay garbaha laga galay gabadha kursiga hana loo siiyo Mareykanka waxa ka dhacday gabar baanin maxay ahaydayay Jamaicankan oo maxay ahayday meelaha jooga oo laakiin iswaalwaalada isaa sameeya bay malaha iska heleen way waxay nin noocaas oo kala ah bay shukaansatay way isguursadeen way raacday reerkii waa iska wateen gabadhooda maalintii dambe reerkii iyo ninkii iyo waa isku soo baxeen waa la sheekaystay mise ninku waa jareer Soomaali waa la hadlay iska warrama ilma adeerayaal ya xidid baanu nahay aanu isxismayno allah hoogayay allah baayay allah ma cidiba ya hadda gaalay rabeen eega gaal kaafiroonde gaal dhalay bay rabeen ya
nin muslina oo ummatu muxamada oo reer jilib iyo jamaama ah oo reer afgooya ah oo reer maxay ahayday jawhar ah oo dalkeeniya oo dadkayagii ah oo tol iyo qaraabo inoo ah oo ummatu muxamada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli gashay bay diidayaan waxay rabaan cadowga ilaahay in ay weheshadaan oo ay gabdhaha siistaan oo ay garab u noqdaan oo ay cankaa ka yeelaan ilaahayga abuurtay baan ku dhaartay haddaanan arrinkaa wax laga qabanin weligeen waa gagabsanaanayna culummada iyo umarada iyo maxay ahayday isimada waxaan u dardaarmayaa ama aan ka codsanayaa in ay arrinkan u istaagaan hadday isimada Soomaaliyeed oo dhan aniga ma oranayo guursada gabdhaha waxaan oranayaa isimada Soomaaliyeed iyo culummada Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed intay bannaan isugu yimaadaan abaari markay dhacdo waa la roob doonaa intay bannaan isugu yimaadaan ay xukunkan buriyaan ay dhahaan waa qaadnay reer walba reerka uu la degan yahay annagu naga mid yahay waliba reer walba aniga isin u ah reerka aan ka dhashay bay dhax galeen wiilkaygana gabar baan ku daray gabadhaydana wiilka baan siiyay hadday isimada Soomaaliyeed yiraahdaan wallahi alazim wax ama acmaasha ilaahay loogu dhawaado kuwa ugu waaweyn way waman ahyaaha فكأنما أحيا الناس جميعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الكريم في بيتك بشارو 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 بشر هذه برشة القرآن كله قلي شري السفر هذا واحد كبر نساء القرآن كي علوم الإسلام كأدي أوتشوجا هويجا أما قوت هذا شغل dugsiga online-ka ee barashada quraanka iyo culumta islaamka duruusta usada taxanaha u bixinayo waxa kamid ah barashada quraanka iyo higaada culumta shariicada tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga qiraa'aadka quraanka kariimka iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada ku